waa kuma shaqsiga mudan 4 sano ee soo socota in codkeena aan siino mudane xildhibaan sii codkaaga dadka deegaanka ayaa ugu yeera gabadha samafalaha oo micno ahaan noqonaysa in dharaarta maalin iyo gudcurka habeenkii ay u taagan tahay samata bixinta dadka nugul iyo kuwa aan codkoodu meel dheer gaarin wax yar aan idin baro qofka aan ka hadlayo caasho xuseen waxay ku dhalatay magaalada Beledweyne kuna barbaartay isla magaalada waxbarashadeeda majaalaadka kala duwan waxay ku qaadatay isla magaalada caasho waa aqoon-yahan inta badan waqtigeeda ku soo dhex qaadatay dadka deegaankeeda waxay gudoomiye ka tahay ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan waxay caasho door weyn ka qaadatay arrimaha bini'aadanimada oo ay si weyn uga soo dhalaashay waxay leedahay dhiirnaan iyo hal adeeg shaqo iyadoo maamuus gaar ah siisa ka warqabka aqoonta mandiqada ay ku nooshahay toddobaad walba waxay samaysaa barnaamijyo si iskiyeed ah ay ugu caawiso bulshadeeda iyadoo aan meelna uga bixin deegaankeeda waa xidigta iyo qofka xudunta u ah in la baro dadka xirfadaha iyo shaqooyinka nolol maalmeedka lagu raadsado taas oo fasir cad u ah kuwa badan oo talooyinkeeda ku shaqo helay maantana ka mid ah xirfadlayaasha deegaanka marka ay timaado matalaad sax ah waa qofka ugu mudan caasho xuseen abuukar iyadoo loo eegayo aqoonta kartida iyo aragnimada waxa taa u dheer inay tahay samafalaha deegaanka mudane xildhibaane codkaada ugu helay senator caasho xuseen abuukar